bismillahi raxmaan raxiim waxaanu wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan ood naga maqlaysaanba akhyaarta ina daawanaysay halkani waa wariyaha com oo markaasi aan alaaba idiin soo gudbino waxyaabaha markaa ku saabsan caalamka ama markaasi aan is leenahay dadka youtube-ka daawada waa ay ka faa'iidi karaan waxaan jeclahay maanta inaan halkan kusoo qaadano su-aalna lasoo weydiiyey barnaamij aad u kooban oo aan rabo inaan 5 daqiiqo aanan ka badin sidaad ogtihiinba dad badani waxay ka helaan facebooka marka uu emailkooda ku xiran yahay hotmailkooda oo kale markuu facebook ku xiran yahay wax kasta oo notification ah ama qoraalo ah ama wax kasta ah waxa kugu soo dhacayaan facebookkaaga waxay kugu soo dhacayaan hotmailkaaga marka wax kasta oo macnaha markii dad badan ay kula soo hadlaan ama message lagu reebo ama qof uu like dhaho ama qof wax kugu share gareeyo waxyaabahaas oo dhan si ay u socdaan waxa ay tegayaan hotmailkaaga kadibna dad badan waxay ka cabanayaan in hotmailka qaybta inboxkii uu ka buuxsamo oo facebookii waxyaabihii ku qornaa oo dhan ay kaga buuxsamaan marka taas marka waxaan rabaa in aad macnaha aan idin tuso sida aad isaga ilaalin karto oo aysan ku dhicin in maaragtay facebookkaaga hotmailkaaga qaybta inboxka waxyaabahaasi oo dhan aysan qashinkaas kaaga buuxsamin marka sidee samayn kartaa sidee inboxkaaga ugu ekayn kartaa in markaasi waxyaabaha muhiimka ah emailada lagu soo diro oo keliya ay kugu soo dhacaan wax alla wixii facebook ah oo qashin ahna ay junk mailka aadaan ayaan ku tusayaa ila soco waa 5 daqiiqo inaan soo badiyo ma rabo qof kasta markii uu hotmailkiisa furo qaybta inboxka markaad tagto waxaa ku arkaysaa inbox ayaa ku qoran oo maaragtay inboxka waa qaybta qofka loogu soo diro qoraalada loogu soo diro qaybtaana rabnaa marka inay soo galaan waxyaabaha aan muhiimka ah lama rabo in facebook iyo waxyaaba badan ay soo galaan marka aad hotmailkaaga furto inbox ku dhufo inbox clicksy inbox markaad tagtid waxaa arki doontaa inboxkaaga waxa ku jiro o dhan markaas kabacdi wax alla wixii facebook ku saabsan haddaad rabto inaysan inboxkaaga imaanin oo junk mailka ay aadaan waxaad samaynaysaa dooro click saar waxyaabaha aad rabin inay kusoo dhacaan click saar kulligood waxaa saartaa jag saar meesha jagta laga saaro jag saar waa waxyaabaha aad rabto inaysan kugu soo dhicin inboxkaaga jagta markaa wada saarto waxyaabahaasoo dhan jag saartid kadib marka waxaad samaynaysaa waxaad tagaysaa qaybta ay ku qoran tahay move to halka ay ku qoran tahay move to ayaa tagaysaa move to keli ku sii kadibna waxaad tiraahdaa meesha waxaad sii dooranaysaa ay ku qoran tahay junk ay ku qoran tahay junk kusii dhufo kadib markaas wax alla wixii aad dooratay junk waxay aadayaan junk mailka aadayaan qaybtaas ay aadayaan marka junk mailka markastuu kaa buuxsamo isaga waa fudud yahay inaad wixii ka tirto junk mailka ku dhufo kadibna waxaad timaadaa meesha ay ku qoran tahay empty qaybta empty ay ku qoran tahay ima ku dhufo empty dheh kadibna halkaas wuxuu ku leeyahay ma hubtaa in wax junk mail ku jiro dhan aan tiro folderkaasoo dhan tiro marka intaadan tirin waa inaad iska hubisaa in wax muhiima ay kaasoo raaceen waxyaabaha kugu jira inay muhiim yihiin iska hubi markaa ogaato wax muhiim inaysan ahaynna imti dheh yaas dheh junk mailka nadiifu noo noqonaya marka wakaasa ebero noo noqday waa noo nadiif waxba kuma jiraan marka waxaan filayaa in qaybtan ay ku caawin doonto mar kale haddaan ku celiyo inboxkaagaa tagaysaa marka aad inboxkaaga tagto wax alla wixii qashin ah oo facebook ka imaanaya ama meelo kale kaaga imaanaya jag saar meesha jagta laga saara waa halkaasi waxaasoo dhan waxaad saaranaysaa jagaa saaranaysaa jag markaa saartid kadibna waxaad leedahay move to meeshay ku qoran tahay tagaysaa kadibna waxaad dooranaysaa meeshay ku qoran tahay junk ay ku qoran tahay dooranaysaa wax alla wixii aad dooratay oo aad junk aad tiraahdo move to junk aad tirahdid hadda kadib inbox kuma soo dhacayaan siday u socdaan mar alle marka lagu soo diro junk mailkay ku dhacayaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo like saar share dheh sidoo kalena waxaad samaysaa commentigana waa ku furan yahay intaasba ha iloobin dabcan subscribe-na waa muhiim inaad dhahdid youtube-ka hadda aad nagala socoto wixii kale oo su-aalaha oo sidaan oo kale oo muhiim ku ah ood rabtid inaad nasoo weydiisana fadlan nasoo weydii commentiga nagu soo weydii haddaad rabtidna websitekeena booqo www wariyaha com kadibna qaybta nala xiriir tag kadibna email ku jira halkaa email nooga soo dir su-aashaadan halkaa kusoo dir waad mahadsantihiin sidaa iyo nabadgelyo